بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن كيمبا ميل والبؤات عالم كجوجتان halka aad nagala socotaan waa Gulshow daawadayaal dhageystayaal idilkiinba meel walba oo caalamka ka joogtaan mar kale waa anigoo Samsama oo idin leh ku soo dhawaada programka barnaamijka maxaynu markaa caawa uga hadlaynaa waxaynu uga hadlaynaa quruxda feega ah ee ay dadku sameystaan midina waxay leedahay side effect oo waxa ka soo gaara dhibaatooyin midina ma laha wax side effectiya waxaynu diiradda ku saaraynaa markan quruxda dhaawacu ka soo gaari karo gaar ahaana waxaynu caawa aniga habeenay ii tahay aynu diiradda saaraynaa surgery-ga oo muddooyinkii dambe badnaa oo qaybo badan oo jirka ah lagu sameyn jiray ayaa inta ugu badan ee muuqata hadda waxaa ka mid ah in lagu sameeyo bishimaha nafahantooda waxaa loo sameeyaa laba qaybood qayb waa qayb professional ah oo loo tago dhakhtar isla markaana ka caawinaya sida markaasi ay u waaweynaan lahaayeen haddii aad leedahay bishimo aad u yaryar qaybta kale ee labaad ayaa iyadu waxa ay tahay mid unprofessional ah oo aad suuqa ka soo iibsanayso aadna u lacag yar isla markaana haddii aad allergy leedahay kugu keeni karta allergy aad ka qaadi karto iyo sidoo kale waxyaabo badan oo aan barnaamijka ku sheegi doono waxaynu markaa caawa saaraynaa qaybaha kala duwan ee surgery-ga ee la sameeyo qaybta bishimaha daawada dhageysta barnaamijka waxaa loogu talagalay wargelin isla markaasina waxa aan doonaynaa in bulshadu ay ka digtoonaadaan waxyaabaha sida yar ee ku dayashada leh ee fudud loo sameeyo isla markaana dhaawaca jirkaaga gaarsiin karta aadan ka soo kabsan karin tusaale ahaan marka aad isticmaasho wax aan dhakhtarkaagu ku ogolayn ama aad iska isticmaasho wax suuqa yaallo oo lagu xayeysiiyey oo aadan ogeyn natiijada ka imaan doonta ayaa markaasi qaybta ugu muhiimsan ee wejiga aad ayay markaasi u dhibaato badan tahay haddii aad u isticmaashid sidaa daraaddeed waxa aynu focus garaynaynaa qaybtan bishimaha waxaan doonayaa marka hore inaad ila eegtid sawiradan oo isla markaasina muujinaya qaabkii kala duwanaa ama natiijooyinkii markaasi ka soo baxay run ahaantii wax walba copyright ay leeyihiin ma doonayo in aan markaasi isticmaalo dad wejiyadooda laakiin inta karaankayga ah inay wixii jiraan ayuun baan doonayaa in aan markaasi idinku tuso intaa kadib waxaan jecelahay haddii aad tahay qof isticmaala qaabkan ama doonaya inuu isticmaalo run ahaantii inay u baahan tahay inaad aad uga fiirsatid dhibaatada kaa soo gaari kartaana ay aad u badan tahay waxaan doonayaa marka in aan kugu baraarujiyo waxyaabaha side effectiga ka imaan kara marka aad isticmaasho muddo kow waxaad ka qaadi kartaa faruuryo qalayl isla markaana markii ay kaa qalalaan waxaad u baahan doontaa in mar walbaba aad isticmaashid inaad ama mar walbaba wax aad marisid qodobka labaad waxa weeyaan in markaasi ay dibnahaagu dilaaci karaan oo dilaacaasina uu noqdo mid aad ka soo kabsan weydo ama muddo ay kugu qaadato in aad ka bogsooto waxa kale oo markaasi iyadana imaan karta in ay si xad dhaafa kuu bararaan oo markaaseeti dhaawac ay ku gaarsiiyaan ama uu dhiig fadhiisto dhibaatooyinka noocaasa marka dhageysta daawade waxaan ugu talagalay bulshadayda inaan uga faa'iideeyo cawaaqib xumada ka imaan kartaa qurux laba maalmood ah in ay markaasi dhaawac weyn ay bulshada u keeni karto sidaa daraaddeedna waxaan kaaga digayaa in ugu yaraan haddii aadan dhaafaynin aad la tashatid dhakhtarkaaga oo markaasi kaa caawin kara ama tala kaasi daawada dhageysta marka waxaa jirta productyo badan oo lagu kala iibsado internetka oo si fudud loo dalbado aadna u raqiisa sidoo kale qayb saddexaad ayaa jirta oo qofku uu samaysan karo hase yeeshee marka dambe
dhibaatooyin ayuu kala kulmaa, ama marka ugu horeysa buu kala kulmaa, ama marka uu muddo wada ayuu kala kulmaa. aan markaasi ku sii sharaxo qaybtan qofku uu keligii isticmaalo dhaawacyada ay qofka u keento. dhaawacyada ay qofka u keento inuu gurigiisa ku isticmaalo caagadaha yaala, ama uu wax kale oo soo jiidaya furihiisa markaa uu isticmaalaa, waxay keeni kartaa in dhiig fadhiisto, maadaama aanay shirkad ka soo shaqaynin ama dhakhtarkii aadan ka raadsanin wixii aad u baahneed. waxaa dhacda marka dad badan inay aad u bararaan, waxaa dhacda inay dilaacaan, waxaa dhacda in markaasi dhaawaca kaa soo gaara oo muddo kugu qaato in jirkii bogsado oo uu raysto. waxaa kale oo markaasi dhacda inaad markaa ku dhici weydo inaad bulshada soo dhex gasho marka arrintaasoo kale aad la kulanto. sidaas si la mid ah barnaamijyadeena dambe iyo qaybaha dambe ee aan doonayno in aan waxyaabo badan oo dadka dhibaato u keeni kara aan kaga hadallo ayaa inoo joogto ahaan doona. sidoo kale waxaa inoo soo socda barnaamijkii maalin dhaweyta aan idiin ballan qaadnay ee ahaa in aanu idiin soo gudbin doono barnaamijka qoyska oo dhammaystiran, isla markaana iyada oo markaasi dhinacyo badan aanu markaa waraysi la yeelanay. tan intaan dib hawada ugu kulmi doono waa anigoo Samsama oo idinkaga tegaya fiidnimo wanaagsan. inta aan dib hawada ugu kulmi doono, haddii aad doonayso barnaamijyada ka baxa channelkeena inaad la socotid, waxaad u baahan tahay inaad gambaleelka taabatid, si otomaatiga ayay markaas kuugu soo dhici doonaan. uma baahnid inaad raadiso. mar kasta oo aan wax soo gelino, si otomaatiga ayay markaasi barnaamijyadu kuugu imaan doonaan.